Windows 10 Taskbar. Windows 10 Taskbarkiisa waa uu ka duwan yahay Windows 11ka. Waxaa dhici karta Windows 10ka inaadan aqoon badan aadan u lahayn wax lagu magacaabo Taskbarka. Ugu horeen waa maxay Windows 10 Taskbar? Markii aan joogno dhinaca computerka, Taskbar waxaa lagu magacaabaa ka soo bilow gacantaada bidix ee calaamadda startiga ah ilaa iyo inta laga aadayo gacantaada bidix ama gacantaada midig aad ka arkaysid meel ay ku qoran tahay notification. Kaas ayaa lagu magacaabaa Taskbar. Haddaba Taskbarkan wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo features ah. Waxa ugu horeeya calaamadda start. Waxa arkaysaa calaamadan waxa lagu magacaabaa start menu. Waxay noogu xiga meel ay ku qoran tahay type here search. Kaasoo aad ku qoraysid dhammaan xogtii aad u baahan tahay haddii uu ahaan lahaa application ama wixii markaas aad ka raadinaysid as a computer iyo as a internet. Waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo task view. Task view wuxuu ka fiican yahay inaad ku isticmaasho wax lagu magacaabo multi-desktop. Waan qaadan doonaa. Waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo Microsoft Edge. waxaa dhici karta inaad isticmaasho Chrome ama Firefox wixii markaas browser ay loogu talagalay computerka. Balse Microsoft waxa ay leedahay mid built-in ku ah sidoo kalena default ku ah kana fudud computerkaaga performance-giisana aan aad u isticmaalaynin ama RAM-ka ama CPU-ga aan aad u isticmaalaynin kaasoo lagu magacaabo Microsoft Edge. Waan qaadan doonaa awoodiisa iyo waxa uu qabto. waxay noogu soo xiga midkan kale ee lagu magacaabo File Explorer. File Explorer ka arkaysid wuxuu awood u leeyahay ama aad ka raadin kartaa number 1 inaad ka ogaan kartid computerkaaga hard drive-yada ku xiran haddii uu ahaan lahaa waxaad external ahaan aad u gelisay ama flash ama hard disk ama wixii external ee computerka ku xiran ama wuxuu markaas computerka ku yimaado ee hard diskiga ah. waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo Microsoft Store. sida uu u leeyahay mobileka Play Store ayuu computerkana uu u leeyahay Microsoft Store kaasoo aad ka helaysid applicationsyo gaar ah oo applicationskaad aad ku soo download gareysan karto sida players hadduu ahaan lahaa iyo waxyaalo kaloo badan. waan qaadan doonaa muuqaalkeeni soo socda. waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo Mail. waxyaalaha aad ku save gareysan kartid waxaa ka mid ah marka waxaad gashan kartaa emailkaaga sida Gmail-kaaga, Yahoo-gaaga, any markaas inbox-kii aad u baahan tahay ayaad ku xiran kartaa kadibna aad kala socon kartaa ama haddii ay fariin ku soo dhici lahayd waxyaalo noocaasa. waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo Widget. Widget-gan waxaad ka ogaan kartaa waxyaalaha ugu dambeeyay ee markaas ka jira caalamka any news hadduu ahaan lahaa akhbaarta oo kale haddii uu ahaan lahaa iyo sidoo kale xaaladda markaas lagu jiro ee wadanka aad adiga ku sugan tahay haddii uu kuleel jiro ama haddii uu qabow jiro waxyaalahaas oo dhan halkan ayaad kala socon kartaa. waxaa sidoo kale aad ka arkaysaa gacantaada qaybtiisa kore waxaad ka arkaysaa meel ay kugu qoran tahay watch a video. watch a video-ga markii aad doorato waxaad arkaysaa computerkaaga meeshii haday uu ka tusayay midka ahaa inaad kala socon karto as qoraal ahaan midkana waxaa kala socon kartaa as a video ahaan. sidoo kale games aad kala socon kartaa iyo waxyaalo kale badan. waan qaadan doonaa Widget iyo waxa uu qabto. waxay noogu sii xigan qaybtan kale ee lagu magacaabo System Tray. System Tray-ga waxaad ka heli kartaa internetka kugu xiran haddii aad isticmaalayso wireless ama haddii aad isticmaalayso fiilalaana. waxaad sidoo kale ka arki kartaa battery performance-gaaga haddii uu batterigaaga buuxo haddii charger uu ku jiro iyo waxyaalahaas oo dhan. waxay noogu xiga midkan kale ee lagu magacaabo speaker kaasoo aad ka ogaan kartid samiicadaada volume-ka inay dheereysan tahay inay gaabsan tahay inuu computerkaaga uu mute gareysan yahay ama inuusan computerkaaga qaybta soundiga uu siin shaqaynaynin. waxay noogu sii xiga meeshan kale ee lagu magacaabo time and date kaasoo aad kala socon kartid saacadda iyo taariikhda. waxa kaloo inoogu dambeeyo aan qaadan doonaa waxay tahay notification. Notification-kan waxaad ka heli kartaa computerkaaga inaad kala socon karto wixii markaas computerkaaga haddii uu qaadan lahaa updates haddii markaas ay soo dhici lahayd computerkaaga inuu u baahan yahay restart haddii fariin qoraal oo kale ay ku taalo sida email-ka aan hore kuugu soo sheegnay haddii markaas aad ku xiriirsato mobileka inuu qaybta notification kaaga soo dhaco
WhatsApp-ka oo kala duwan notification ku yaalo waxyaalo badan ee computerka ku saleysan ayaad kala socon kartaa qaybta gacantaada midig ee notification-ka aan ku bilaawno marka qaybta ugu horeeyo ee start menu markii aad joogtid calaamadda qaybtan ee start menu-ga markii aad kili ku siiso waxaad arkaysaa daah cusub ee lagu magacaabo start menu on Windows 10 waxa ugu horeeya aad arkaysid gacantaada bidix waxa ugu horeeya aad arkaysid waa calaamadan keyboard-ka kaasoo aad kala ogaan kartid computerkaaga ama xataa aad u baahan tahay inaad computerkaaga aad deminaysid oo dib u soo daaraysid kaasoo loo yaqaan restartiga haddii aad computerkaaga deminaysid waxaad u baahan tahay kaliya inaad garaacdo calaamadda startiga halkaana kadibna waxaad ka dooran kartaa labadan option midkii aad u baahan tahay optionka restartiga oo awood u leedahay inaad computerkaaga demiso kadibna aad dib u soo daarto midkan kale ee shutdown-ka ah kadibna aad awood u leedahay computerkaaga permanently ama si caadi ah inuu u demo waxay noogu sii xiga meeshan kale ay ku qoran tahay settingskan waxaad ka controli kartaa computerkaaga settingskiisa kaasoo aad ka controli kartid wirelesska computer performance-gaaga waxyaalo kaloo badan ayaad ka controli kartaa waxaa qaybtan kale ku arkaynaa pictures iyo documents iyo midkan kale ay ku qoran tahay user account-kaaga marka aniga Cabdiweli Muhammad ay inoogu qoran laakiin adiga waxaa dhici karto magacaad adiga computerka ama haddii sida inta badan qolada electronicska ama meelaha computerska lagu sameeyo inta badan waxay ku qoran hadduu HP yahay HP hadduu Lenovo yahay Lenovo waxaasay ku qoran inkastoo ay ka fiican tahay inaad adigu magacaaga ku qorato waana qaadan doonaa qaabka aad magaca aad u baahan tahay aad ugu bedeli lahayd balse qaybtan waxaad ku ogaan kartaa computerkaaga profile-ka magaca kuugu qoran iyo inaad ka bedeli kartid sawirka aad rabtid inuu markaas kuu koro ama qaybta profile image-ka uu kuu koro qaybtan kore waxaad ku arkaysaa marka ama qaybtan ugu horeeyo waxaad ku arkaysaa start oo ah qaybta notification-kiisa marka qaybtan waa arkaysaa waa qayb panel ah oo geeska sidan u soo baxaya qaybtaas waxaad ku baratay qaybta bilowga hore waxaa sidoo kale ku arkaysaa halkan inay ugu jiraan applications badan oo aad u tiro badan kaasoo ah computerkaaga application-kii aad ku shubatay iyo markaas wixii ku yimaaday computerka ayaad ka arki kartaa qaybtan start menu-ga marka start menu-gan ayaa wuxuu u samaysan yahay 3 daahan koowaad oo lagu magacaabo qaybta startiga caadiga ah sidoo kale qaybtan oo lagu magacaabo qaybta applicationskii oo u kala baxo qaybta recentiga ama waxyaalaha ugu dambeeyay isticmaashay ama wixii ugu dambeeyay markaas aad kicisay ama aad ku shubtay waxaa kale qaybtan ku arkaysaa Windows-ka waxyaalaha default-ga ee ku yimaado kaasoo aad ka arki kartid gacantaada midig kaasoo loo yaqaano start Windows-ka sidoo kale qaybtan waxaad ka arki kartaa ama arrows-kan application-kii ku jiro computerkaaga iyagoo u kala baxaan labo mid ku yimaado computerkaaga oo built-in ku ah oo Windows-ka uu wato iyo mid ee markaas ku yimaada ama adiga aad ku install garaysato ayaa inta badan aad ka arki kartaa qaybtan ee start menu-ga waxaa gacantaada bidix ama gacantaada midig aad ka sii arki kartaa inkastoo gacanta bidix ay u badan tahay laakiin qaybta aad ku shaqeynayno ayaa gacanta midig inoo noqon doonta qaybtaana waxaad ku arki kartaa applications si kala duwan inay inoo saaran yihiin marka qaybtan waxaa lagu magacaabaa start menu-ga oo qaybta caadiga ah waxay noogu sii xiga ama aan ku arki karnaa qaybtan ee lagu magacaabo type here to search waa meesha aan kuu sheegayay oo aad ka ogaan kartid computerkaaga application-ka aad u baahan tahay inaad raadiso ama application-ka aad u baahan tahay way qoraal ahaan ama documents haddii ahaan lahaa ama file walba markaas aad u baahan tahay haddaba kan ayaad kali ku siinaysaa application-kii aad u baahan tahay ayaan halkan ku qoraynaa tusaale ahaan markaan ka soo qaadna anaga waxaan ku qoraynaa Word oo kale Word markii aan ku qorno automatically waxaa arkaysaa computerkaaga inuu ka soo baxayo Word-ku aad arkaysaa qaybtan all ayuu ka arkaysaa waxaa halkan kale ka arkaysaa applications haddii app ahaan uu u raadinayo sidoo kale by document file aad ku qoratay qoraal ahaan halkan ayaa toos ugu raadin kartaa haddii aad qaybta web aad ku dhufatidna toos wuxuu aadayaa internetka waa haddii computerkaaga uu ku xiran yahay internetka sidoo kale qaybtan waxaa ku qoran more meeshaas waxaad ka arki kartaa computerkaaga folderskii musicdii videoskii wixii markaas aad dhigi kartid waad ku ogeyd ama waad ku raadin kartaa marka application-kii aad u baahan tahay ayaad halkan ku qori kartaa oo aad ka raadin kartaa any application kaliya waxaa ah muhiimadda magaca aad raadinaysid kaliya inaad xasuusnaato intaas waxaan u maleynaa inaad si fiican ila socoto qaybtan waliba wuxuu caawinaad dheeraada oo kuu samaynayaa waxay tahay waxaad awood aad u leedahay ama aad ku raadin kartaa any qoraal aad u baahan tahay
any xisaab aad u baahan tahay tusaalahan qaybta xisaabta markaan ka soo qaadno waxaan arkaynaa inaan dhahno 5 times 5 markii aan dhahno qaybtan ayaa waxaan ku qoraynaa 5 times 5 ayaa leenahay automatically wuxuu ka raadinayaa internetka waad arkaysaa automatically qaybta calculatorka ayaa inoo soo baxay waxaad ku arkaysaa 5 times 5 25 inuu yahay macnaha meeshii aad ka raadin lahayd calculator kadib qoraalka wax dheer marka Windowska lot of things waxyaalo badan ayaa ku jira oo aadan aqoon u lahayn balse muuqaalkan waxaan ku qaadan doonaa koorso dhammaystiran oo aad ku baran doontid Windows 10 wax walba uu leeyahay oo dhammaystiran haddaba qaybtan searchingka waxaad awood u leedahay application ku jira computerkaaga inaad ka raadin karto application ku yimaada Windowska iyo mid aad adigu ku shubatay iyo wixii aad u baahan tahay inaad internet ahaan aad u raadiso tusaale ahaan waxaad raadinaysaa what is my IP ayaad dhihi kartaa automatically waxaa arkaysaa inuu internetka ka raadinayo IP-gaaga any configuration aad u baahan tahay ama any su'aal aad u baahan tahay ayaad halkan ka raadi kartaa qaybtan startiga halkan ayuu inoogu egyahay waxay noogu sii xiga qaybtan task view-ga 10 dhameystiran ayaan ka qaadan doonaa oo koorsooyinkeena kamida waad ka dooran kartaa waxay noogu xiga qaybtan Microsoft Edge-ka asigana waxa uu dheer yahay waad dooran doonaa oo waan baran doonaa oo waa meesha aad ka raadin lahayd computerkaaga markii aad Google waxaad ka raadinayso markii aad sawir soo degsanayso markii aad Facebook ka furanayso whatever aad u baahan tahay qaybtan waxay noogu xigo File Explorer waa meesha aad ka raadin kartid computerkaaga hard drive-yada ku xiran iyo sidaan hore kuugu soo sheegay sidoo kale waa qaybtan Microsoft Store-ka waa meesha aad ka raadin lahayd application-kii aad u baahan tahay inaad si gaar ah u soo degsato markii aad kale ku siiso waxaan rabnaa tusaale ahaan markii aan ka soo qaadno markii aad kale ku siiso application-ka aad u baahan tahay ayaad download ku samaysan kartaa application-ka markii aad kale ku siiso uu ku soo kacaya application-kan ma shaqeynayo haddii uusan computerkaaga ku xirnayn internet haddii uu internet kuugu xiran yahay application-ka sida hadda shaashada kaaga muuqato ayuu kuugu soo kacaya haddaba application-kii aad u baahan tahay ayaad kaliya ku qoran kartaa qaybta searching-ka halkaana ama waxaad awood u leedahay meeshan ay ku qoran tahay see all ayaad kaliya ku siin kartaa kadibna application-kii aad raadinaysay ayaa halkan ka raadin kartaa tusaale ahaan hadda markaan ka soo qaadna qaybtan Netflix-ka hadda haddii aan tagna qaybta start menu-ga aan ku qorna Netflix waxaa arkaysaa computerkeena inuusan ku shubnayn wax Netflix ah saas darteeda marka Netflix-ka haddii aad u baahan tahay haddii aad tahay dad isticmaala computerka Netflix-ka halkan aad ka soo degsan kartaa any application aad u baahan tahay WhatsApp-ka Netflix-ka tusaale ahaan xataa waxaa awood u leedahay inaad soo degsato VLC waa player-ka inta badan la isticmaalo dadka isticmaala computerka VLC ayaad qoraysaa okay ayaa leedahay okay markii aad tiraadid wuxuu ku soo baxayaa download box-ka download box-kan waxaa gacantaada midig ku arkaysaa ama shaashadaada gacanta midig waxaad ku arkaysaa meel ay kugu qoran tahay install-kan ayaad kale ku siinaysaa install-ka markaa kale ku siisid haddii computerkaaga internet ku xiran yahay waxaa arkaysaa in uu ku bilaabayo download-ka laakiinse haddii ay dhacdo marka in markii aad install tiraahdo uu ku keeno account ama isdiiwaangeli wax noocaas oo kale haddii ku keeno tusaale ahaan markaa ka soo qaadno waxaa dhici karta inuu ku keeno qaab noocan oo kale ee shaashada kaaga muuqata Microsoft waxay leedahay sida Gmail uu u leeyahay ayay iyagana u leeyihiin Hotmail Outbox waa shirkadda ugu horeysay ee inbox in la isticmaalo keentay long time ago 2000kii meelaas ayaan ka hadlaynaa xitaa haddii aad xasuusato ama dad old haddii tahay cashirkan koorsooyinkan aad daawanaysid MSN Messenger wax la dhahay jiray oo lasku isticmaali jiray Hotmail-ka Outlook-ga waxyaalo noocaasa iyaga marka waa inaa heshaa account-kaas haddaba qaybta VLC-gii ayaa wuxuu inoo keenay su'aal uu ku leeyahay application-kan ayaa soo degatay ma ku shubaysaa yes ayaan leenahay waan soo degsanay yes ayaan leenahay automatically installing ayuu bilaabaa marka account-kan waa inaa yeelataa haddii aad rabtid in applicationska qaar haddii ay dhacdo inuu kuu soo degi waayo qasab waxaa ah inaad qaabkan u samaysato kadibna ay kuu sahlanaato in aad application-kii aad u baahan tahay aad la soo degi karto marka waa qaadan doonaa qaabka loo samayn doono balse koorsadan waxaan ku qaadan doonaa taskbar-ka iyo applicationska waxa ay kala qabtaan
okay application kii way noo dhameeyay sidee ayaan ku raadi karnaa waxaan ku raadi karnaa calaamadda start menu halkan ayaad kali ku siinaysaa automatically waxa arkaysaa inuu halkan kuugu qoran yahay VLC iyo waxyaalaha markaas hoos yimaado sidoo kale waxa halkan ku arkaysaa isla desktop-ka caadiga inuu inoo soo koray marka application-kii aad u baahan tahay waad ka raadin kartaa application-kii aysan ku jirinna sida caadiga ee computerka browserka ayaad ka raadin kartaa marka qaybtan waxyaalo badan ayuu kuu qaban karaa xitaa waxaad u baahan tahay ama aad awood u leedahay ama laga rabo inaad samayso marka ugu horeyso computerkaaga mar walba inaad hubisid applicationska ku yimaado Windowska inuu update leeyahay waxaad tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay library-ga halkaana kadibna waxaa halkan ku arkaysaa application-kii u baahan update halkan waxaad dhihi kartaa get update automatically computerkaaga wuxuu raadinayaa ama application-ka wuxuu raadinayaa programyadii ee markaas u baahan kuna jira computerkaaga kaagana baahan inaad markaas update aad ku samayso marka update-kiisaas ka sii qaato waan iska minimize gareynaynaa oo minimize ayaan leenahay okay qaybtan kale waa mail kaasoo aad ku xiran kartid inbox-kaaga waxyaalo noocaasa waan qaadan doonaa qaabka mailka loo shaqeeyo balse hadda waxaan dib ugu soo laabanaynaa qaybtan ee Microsoft Store-ka marka Microsoft-gan waa arkaysaa applicationska qaar dhammaan loading ayuu ku sameynayaa kaasoo ay ku xiran tahay internetkaaga speedkiisa okay kan hayno waa sii minimize gareynaynaa shaqadiisa inoo wado wajdi waan qaadanay oo kaasood kala socon kartid newska kana waa batterygaaga inta percentage-ka uu marayo kan waxaa la yiraahdaa Meet waa application ku yimaada Windowska kaasoo conversation aad kula sameyn kartid asxaabtaada ama qaraabadaada ama familkaaga ama dadka markaas ay businesska idin kala dhaxayso kanna meeshaan aad ku arkaysid calaamadda network-ga waa meesha aad ka ogaan kartid computerkaaga inaad isticmaalayso wireless inaad isticmaalayso fiilalaan iyo waxyaalo badan marka qaybtan kale inoogu xigto waa qayb soundska oo aad ka controli kartid computerkaaga inuu cod kuu shaqeynayo inuusan kuu shaqeyneynin iyo waxyaalo noocaasa sidoo kale qaybtanna waa meeshii aad ka ogaan lahayd computerkaaga saacadda iyo daqiiqadda sidoo kalena aad ka ogaan kartid taariikhda waqti xaadirkaas la marayo iyo sanadka waqtigaas la marayo qaybtan kale waa qaybtii notification-kan hore kuugu soo sheegayay kaasoo aad awood u leedahay inaad ka ogaan karto qaybta markaas fariimihii ay ku soo dhacday waxaan arkaynaa marka ugu dambeyn inuu inoo keenay meeshan lagu magacaabo updateska ugu dambeeyay waxaan arkaynaa haddaan doorano qaybta notification-ka haddii aan doorano qaybta notification-ka halkaana fiiri waxaan arkaysaa marka in notification-ku inoo soo sheegay antiviruska iyo waxyaalo kaloo badan haddii ay dhacdo marka inuu dhowr notifications uu ku saaran yahay kaliya waxaad dooran kartaa halkan kadibna waxaad dhihi kartaa clear oo ah iga wada bixi waxaad awood u leedahay inaad expanded samayn karto kadibna aad ka controli karto wireless-kaaga haddii VN uu kugu xiran yahay night mode waxyaalahan oo dhan waa qaadan doonaa balse qaybta notification-ka wax badan ayaad awood u leedahay waad ku isticmaali karto computerkaaga waxaan rabnaa marka qaybtan anagoo kaga faa'iideysanayna waxaan qaadanaynaa waxaan u malaynaa updatesyadii inay inoo socdaan waa arkaysaa dhammaan updatesyadan ayaa wada socon doona marka qaybtan casharkan qaybtiisa koowaad ama koorsadan qaybtiisa koowaad waxaan ku baranay wax lagu magacaabo taskbar waa inoo iyo cashirkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh